Qaar ka mid ah kiisaska falalka dembiyada xitaa waxa ay ka yaabayaan marmarka qaarkood booliiska. Muuqaalkani waxaad ku arki doontaa kiis falal dembi ah oo qof Soomaali Maraykan ah iyo qof caddaan ah ay ku dhacday. Qaabka dhacdada ay u dhacdayna waa mid runtii qofkii maqlaba uu aad ula yaabayo. Sanadkan markuu ahaa 2004, nin caddaan ah oo waddada socda ayaa waxa uu meel ku arkay qof meyd ah oo sida kartoonka oo kale koolo lagu soo xiray. Konteenarka qashinka ee waddada hoostiisa ayuuna qofku yaalay. Booliiska markii uu wacay ninka waxaa durba halkaas soo gaaray dhowr baabuur oo booliis ah. Waddaduna waa la xiray. Kadibna waxaa halkaa imaaday khubarada dembi baarista. Meydka marka wejiga laga furayna waa haweeney waayeel ah. Waxaa si degdeg ah loo diray jasadkani meydka shaybaanka dembi baarista si loo helo raadka dilaaga falkani dembiga. Waxaase cajiib ah in meydka afkiisii laga helay dhowr xabbo oo naftaaliin ah. Naftaaliinna waa maado kiimika ah oo loo isticmaalo si urka looga hortago. Aqoon-yahanada dembi baarista waxa ay sheegeen in waxraad far ama DNA in aysan ku arkin marxuumadani la dilay. Si loo aqoonsado kolkani meydkana, booliisku waxa uu isku dayay inuu baaro liiska dadka la la'yahay, balse haweeneydani lagama helin liiska dadka la la'yahay. Dhacdadanina xalinteedii iyo helista dilaaga marka ay ku adkaatay booliisku waxa ay ku qasbanaadeen in ay ku duugaan qubuuraha dadka dadla'aanta ah. Kiiskaasina waa uu xirmay maadaama waxyar ooraad ama daliila marxuumadaasi oo laga ogaan karo aysan jirin. 2 isbuuc kadib waxaa haddana booliiska soo gaaray xeebta agteedii haweeney kale oo lagu dilay. Haweeneydanina sidii oo kale koolo ayaa lagu xiray, afkeediina maadada naftaaliinka ayaa ku jirtay. Waxaa booliiska u caddaatay in falkani dembiga in hal qof oo keli inuu samaynayo, balse dilaagu waxa ay xaqiiqsadeen inuu yahay qof professionaal ah. Qofka uu dilo waxraad ama astaan yar oo lagu ogaan karo uguma uusan tegin. Aqoon-yahanada shaybaankuna sidii oo kale iyaguna waxa ay sheegeen wax daliil oo DNA ama raad oo jasadkani laga helay in aysan jirin. Iyada oo xaalku sidaa yahay, marxuumadii geeriyootay dharka ay wadatay gaar ahaan surwaalka ayaa waxaa laga helay waraaqad yar oo ay ku qoran tahay Lila 45672. Booliisku marka ay arkeen xarfahan iyo nambarada waxa ay bilaabeen in ay ka fakaraan waxa loola jeedo micnaha iyo nambarka si uun daliil ay uga helaan. Isla markiiba aagga haweeneydani meydkeedii laga helay meel aan sidaa uga fogeyn waxaa la ogaaday in hotel Lila la dhaho inuu ku yaalo. Si dhaqso ah macluumaadkani marka booliiska gacantoodii uu soo galay hoteelkii ayay imaadeen. Marxuumadii la dilay sawirkeedii ayay tuseen maamulka hoteelka. Kadibna waxaa la sheegay qof la yaqaan oo hoteelka imaan jiray in gabadhu ay tahay. Waxaase cajiiba in haweeneydani ay ahayd qof ajnabi ah oo Maraykanka aanan u dhalan. Waxaa la helay haweeneydani ay dhiiga ay hoteelka ku soo gashay iyo qofka referansi ahaan mas'uulka ka ahaa oo ay ku soo degtay. Dadkii ka shaqaynayay hoteelkuna waxa ay sheegeen wiil Ismaaciil la dhaho oo Soomaali ah in haweeneydani uu la socday. Booliiska marka uu qolka haweeneydani ay degneed uu soo galay waxa uu suuliga uu ku arkay maadadii naftaaliinka ahayd. Waxaase la sheegay wiilka Soomaaliga iyo dhowr carruur ah in haweeneydani hoteelka ay degnaayeen. Kolkanina shakiga oo dhan iyo dilalkani labada ahba waxa ay sabab u noqotay in indhaha booliiska raadinta Ismaaciil ay u soo jeesadaan. Xilli galab ay tahay, Ismaaciil isaga oo tareen ka soo degaya ayaa waxa uu arkay booliis u soo dhowaanaya. Durba Ismaaciil waa uu ka cararay booliiska. Ugu dambayn waa la soo qabtay. Markii loo gudbiyey qolka maxkamadaynta ayaa waxaa Ismaaciil laga waraystay sida uu dalka ku soo galay, haweeneydani la dilay iyo xiriirka isaga kala dhexeeyey. Ismaaciil waxa uu dhahay, aniga oo aanan sharci qaadan ayaan Kanada ka shaqaynayay. Muddadaasina waxaan isjeclaanay haweeney South Afrikaan ah. Waxa ayna ii dhashay haweeneyda 2 gabdhood iyo 1 wiil. Haweeneydani South Afrikaanta ahna waa midda uu hoteelka la imaan jiray ee la dilay. Ismaaciil waxa uu dhahay, waxaa isoo wajahay xilli xaalad dhaqaale xumo ah, si uunna waxaan isku dhacnay haweeneydii aan qabay. Marka aan xalin weynay problemka dhexdeennii yaalay, ugu dambayn waxaan go'aan ku gaaray in carruurta aan ka wato kadibna aan iska furo. Sidii ayaana sameeyey aniga iyo carruurteedii. Waxaan soo degnay meel kale. Habeenada ka mid ah waddada aniga oo socda ayaa waxaan arkay gabadhii oo isla socdaan nin kale. Iyada oo kala tageeni 1 isbuuc xitaa uusan ka soo wareegan in aan ku arko qof kale oo nina aad ay iga xanaajisay. Waan fududaaday xilliga oo ma aanan ogeyn in ninka uu ahaa qof ay meel iskala shaqaynayeen. Waddada ayaan la raacay. Marka ay kala leexdeen oo keli ay noqotay ayaan waddada ku qabtay
qabtay wixii aan ku sameeyey xitaa ma aqaano waxaa la ii sheegay in dhaawac culus aan gaarsiiyey si degdeg ah booliiskii Kanada ayaa isoo qabteen kadibna maxkamadeedu waxa ay noqotay muddo 3 bilood ah in xabsiga la dhigo iyo in 9 sano oo kaamil ah mamnuuc ay iga tahay in dalka Kanada aan soo galo sidii ayna sameeyeen 3 bil kadib habkan Saudi ah ayaan aniga iyo caruurteedaba dalka Mareykanka ku soo galnay halkaasi ayaan isku dhiibnay waxaana ii bilowday nolol kale oo cusub muddo sanadah kadib maalin ayaa waxa isoo wacday xaaskii hore ee Kanada aan ku qabi jiray ee South Afrikaanta ahayd waxa ayna igu dhahday Ismaaciil si kastoo xiriirkeeni uusan u wanaagsanayn haddana waan ku jeclahay waxaan doonayaa inaan arko caruurteeda wixii qalad ah ayaad igu samaysayna waan ku cafiyey xaqiiqdii hadalkani waxa uu ka mid ahaa hadallada inta aan noolahay hadal aan maqlo midkii igu farxadda badnaa ilbiiqsi kadibba waxaan bilaabay diyaargarowgeedii waxaana dejiyey hotel aanan ka fogeyn halka aan deganahay maadaama labadeeni dad isqaba aanan ahayn igama aysan ogolaan in gur ay ila degto waayo gabadha caruurta darteedii ayay u imaadeen mooye sideedii kale aniga agteedii wax kalsooni ah kuma aysan qabin anigu inaan arko mar kale farxad ayay ii ahayd waxa ay ilowsiisay xabsigii 3 bil ahaa iyo ganaaxii 9 sano ah Ismaaciilna waxa uu ahaa sida ay sheegeen dadka hotelka ka shaqeynay qof buuq badan xitaa habeenka uu hotelka imaaday ayaa la sheegaa inay isdagaaleen qof kale oo hotelka la jiifay qofkaasina dhaawac ayuu gaarsiiyey si kastoo dhaawacaasi uu fududaa booliisku waxa ay sheegeen hadallada Ismaaciil marka la fiiriyo xiriirka gabadhaasi iyo isaga kala dhaxayn jiray iyo hotelka uu imaan jiray iyo in qolka Ismaaciil laga helo maadada naftaaliinka waxa ay xoojinaysay shakiga Ismaaciil laga qabo waayo laba qofood ee caruur isku dhalay in labadoodii hal meel aysan wada seexan waxa ay muujinaysay raali ahaansho in dhaxdoodii aysan yeelin wax xumaan ah inay dhex taalo ugu dambeyn maxkamaddu waxay Ismaaciil ku xukuntay xabsi si kastoo isaga macsuum qof aan dambi aanan lahayn uu isugu sheegay haddana daliilka lahayo iyo shakiga oo dhan Ismaaciil maadaama ay muujinayaan waxaa qasab noqotay in jeelka loo diro kiiska Ismaaciilna halkaasi ayuu ku soo xirmay muddo 1 bil ah marka ay ka soo wareegatay ayaa haddana mar kale waxaa booliiska la soo gaarsiinin meeyda oo dhismo burburay dhexdiisii lagu dhex tuuray ninkani sidii kuwii hore oo kale koola ayaa lagu xiray afkuna maadada naftaaliinka ayaa ugu joogtaa booliiskii shakiga ayaa ku ziyaaday dilalkani isku nooca ah qofkii looga shakisanaa xabsiga haddii uu ku jiro sidee ayaa qofkani lagu dilay waxaa loo malay in waa hore qof la dilay oo in muddo aanan la arkin inuu yahay markii shaybaanka meydka loo dirayna waxaa la ogaaday in 10 maalin meydkani uu yahay waxaase cajiib ah meydkani qof Mareykan ah maadaama uu ahaa waxa uu noqday qof muddo isbuuc ah cidiisu ay raadinaysay booliiskuna diiwaanka dad kale la yahay qof ku dhex jira inuu yahay marka uu arkay waxa uu ku qasbanaaday marxuumka cidiisu in waraysi ay la sameeyaan marxuumka cidiisu waxa ay sheegeen markii ay ugu wardambeysay in xilli shaqada uu ka soo baxay gurigana uu u soo socday intaa kadib in hadal aysan ka maqlin dilkanina waxa uu u muuqday dhanka booliiska dil aanan wax daliil ah aanan loo hayn oo booliiska ay ku adag tahay in ay xaliyaan iyada oo kiiskani uu furan yahay ayaa nasiib wanaag waxaa booliiska soo gaaray dacwo kale in guri dhexdiisii meyd laga dhex helay qoladii baaritaanka ee guriga timidna waxa ay arkeen in meydkani guriga yaalana in koola lagu xiray sidoo kalena naftaalin loo adeegsaday gurigaasi hal qof oo kaliya ayaa ku noolaan jiray isla qofkaasi ayaa si dhaqso ah markii la xaqiijiyeyba halka uu ku sugan yahay goobtiisii shaqada ayaa laga soo qabtay isaga oo waxba aanan ku baraagsanayn waxaase cajiib noqotay in ninkani guriga ku noolaan jiray in uu shaqaale dhulka tirtiraa uu ka ahaa hotelkii hadda ka hor wiilkii Soomaaliga ahaa iyo xaaskiisu ay imaadeen marka ninkani qolka waraysiga loo gudbiyey ugu dambeyn waxa uu bilaabay inuu qirto falalka dambiyada ee dilalka uu sameeyey waxa uuna dhahay hooyadeedu waxa ay ahayd qof waayeela xanuun dartiisii ayay guriga ugu dhimatay jaceelka aan u qabay darteeduna marnaba ma aanan jeclaanin in ay iga dheeraato oo meel kale lagu duugo guriga meel ka mid ah ayaan hooyadeedii dhigtay muddo marka ay sidaa u taalay oo mar walba wejigeedii aan u fiirin jiray meydkii ugu dambeyn waxa uu bilaabay in uu soo uro kadibna waxaan soo qaaday koolo kor iyo hoosba meel walba waan ka xiray
kadibna carfisa naftaaliina ayaan u adeegsaday si uusan meydka u qurmin. sidaa ayaana hooyadeedii oo meyd ah kula noolaa guriga dhexdiisii. inta aanan hadalka sii dhammaystirinna baaritaan ninkani gurigiisii lagu sameeyey waxaa qashinka dhexdiisii laga helay baasaboor iyo ID-ga gabadhii South Afrikaanta ahayd ee wiilkii Soomaaliga uu qabi jiray. shakiguna booliiska aad ayuu ugu siyaaday. waxa uu ku daray dambiilaha xaaladaasi aniga oo hooyadeedii guriga kula nool ayaa hoteelkii aan ka shaqaynay waxa ay maamulkii ii sheegeen in bishaasi dhaqaale xumo ay jirto, miinshaankuna ilaa 15 bisha inuu soo dibdhici doono. xaqiiqdii aniguna xaalad xun oo dhaqaale xumo ah ayaan ku sugnaa. markaas ayaa niyadeedii waxaa ku soo dhacay akoonka bangiga hooyadeedii lacagta ay dowladda ka qaadan jirtay in aan la soo baxo, balse bangigii qofnina maadaama aan noqday way ii diideen qof magac dumar ah in lacagta aan ku qaato. aad baan u carooday xaalad xun aniga oo ku sugan in lacagta ay ii diidaan. aniga oo xanaaq dartiisii bangiga ka soo laabtay ayaa waddada waxaa iga hor imaaday islaam waayeel oo dariskeenii ahayd, hooyadeeduna saaxiibo ay ahaayeen. waxa ay iga wanaysatay caafimaadka hooyaday. waxaan ku dhahay hooyo xaaladeedii caafimaad way ka soo daraysaa, guriga ayayna dhaqaatiirta ugu imaadaan. waxay igu dhahay allaha caafiyo, kadibna way iga tagtay. isla markiiba waxaa niyadeedii ku soo dhacay talow haddii haweeneydani way og tahay hooyaday in ay xanuunsan tahay, haddii bangiga qof damiin ah ay iga naqato lacagtu waad heli kartaa. gadaal inta aan u soo noqday ayaa waxaan u soo bandhigay dalabkani in bangiga beri subax ay ii raacdo. way iga aqbashay waxayna igu dhahday subaxii inta aadan bixin waan ku soo mari doonaa ee isdiyaari. aad baan u farxay. habeenkaasi xilli hore ayaan seexday. aroor horena waxaaba albaabka soo gangaraacay islaantii waayeelka ahayd, iyada oo buskud iyo waxyaabo kale oo macmacaan ah gacanta ku wada. albaabka markii aan ka fura waxay igu dhahday inakeen, balse inta aad isdiyaarinayso hooyana waan fiirinaya caafimaadkeedii si aan u salaamo. sida ay noqotayba hooyo waa qof meyda oo dhowr isbuuc ka hor dhintay. maxaan ku jawaabi doonaa? gudaha marka ay soo gashay islaantii waayeelka ahayd waxaa keliya ee caqligaygii ku soo dhacay waxa uu ahaa in iyaduna afka bacaan u geliyo, kadibna halkaa aan ku suuxiyo ilaa ay ka dhimatana inaan ceeji ku dilo. sidii ayaana sameeyey. haweeneediina halkaa ayaan ku dilay. dushana sida kartoonka oo kale koolo ayaan ku xidhay. waan farxay 2 jeer. haweeneydani duqda ahayd gadaasheedii wax oolaad ama qof isoo raadin karaa ama qof baari karaa ma jiro. waa qof keligeedii guri ku noolayd. dhinacna beentii ay igu qaban lahayd ayaan ka badbaaday. isla markiiba haweeneydani bannaanka ayaan ku soo tuuray. shaqadeediina waan iska sii watay. bangiga in badan ayaan ku noqnoqonay. heer xitaa waxaa la gaaray maalin bangiga xoog la igaga saaro. qoladii bangiga ninkani dhaqankiisu marka ay ka shakiyeen iyo xoogga uu isticmaalayo in lacagta hooyadiisii uu la soo baxo, qolo bangiga ka socotay ayaa maalin waxa ay imaadeen gurigiisii. waana halka dilaaga sirtiisii oo dhan ay ka fashilmi doonto. intaa kadib waxa uu ku daray dilaaga bishaasi hoteelka lacagtiisu ay soo dibdhici doonto. aniga oo habeen dhulka xaaqay ayaa waxaa soo dhacay taleefoonka hoteelka. waaba nin aan aqaanay oo hoteelka deganaan jiray. salaan kadib waxa uu igu dhahay faraanti dahaba ayaa suuliga qolkeygii ku hilmaamay, ee fadlan faraantigaasi ii hay. faraantiga ayaan u soo qaaday. waxaana niyadeedii ku jirtay talow faraantigani ma iibsataa. nasiib wanaag aniga oo ku warwaraya sida faraantigani aan ka yeeli lahaa waxaa ii soo dhacay taleefon. ninkii waxa uuna igu dhahay hoteelka waan ka soo gaari waayey, beri ayaan kaa qaadanayaa. maadaama uu yaqaanay qolkiisuna aan xaaqi jiray, beri hoteelka ma imaan doono. faraantigana aniga ayaa ku hayo. adreskani waa adreska gurigeygii ee imaaw, fadlan iga qaado. wuu ii aaminay maadaama hadda ka hor wax qaladaad ama dhiba ama cillad uusan igu arkin. qorshahayguna waxa uu ahaa dilka ninkani, kadibna faraantigiisii in aan iibsado. maalintii oo dhan diyaargarowga dilka ninkaasi ayaan ku jiray. albaabka marka uu soo gangaraacay galabtii oo aan ka furayba afka ayaan qabtay. gudaha ayaan u soo jeeday ilaa daqiiqado sida aan u ceejinayay. ninkii nafta ayaa halkaa ugaga baxday. kadibna sidii kubii hore oo kale koolo ayaan isaga oo dhan inta aan ku xirxiray, kadibna naftaaliin intaan u isticmaalay. kadib ayaan baabuurkeygii gadaal ka saaray. dambi dundumsan dhexdiisa oo aanan laga garan karin ayaan ku dhex tuuray sida qof professional oo wax jixaanjix ah aanan qorin oo kale, iyadoo aanan cidna i dareemsanayn. welibana dadku ay ugu kalsoon yihiin ayaan shaqadeedii dilka watay. si caadi ah ayaan suuqa iyo maqaayadaha u dhex mari jiray. cidna ima aysan fahmi jirin.
kolkanina dilka oo dhan waxa uu ii noqday wax normal ah midka aan dilaba xilli cayiman ayaan bannaanka ku soo tuuri jiray marka uu intani qirtay waxaa la tusay baasaboorkii gabadhii South Afrikaanka ahayd ee wiilka Soomaaliga uu qabi jiray baasaboorka gabadhanina waxaa laga helay gaar ahaan qashinka gurigiisii dhex yaalay waxa uuna dhahay Ismaaciil waxa uu ahaa qof wanaagsan ee si aad oo weyn aan isku naqaanay hoteelka ayuuna imaan jiray xitaa maalintii ugu horeysay ee gabadha South Afrikaanka ay soo degaysay aniga ayaa airport-ka ka soo qaaday gabadhaasi kuma aanan maagin ilaa inay ahayd marka aan dhulka xaaqayo qof aanan qiimeyn wax salaanah ma jirto agteedii ayay mari jirtay halka aan xaaqay ayay dumba wax soo dhigtaa qofka bani aadamka ahna in jiritaankiisii oo dhan la yaso wax loo dulqaadan kara ma aha dhaqankeedii fooshu xun marka uu igu soo noqnoqday waxaan go'aan ku gaaray inaan iyada oo dhan aan ciribtiro Ismaaciil maadaama saaxiibo hoosaad aan ahayn waan ogaa in ay kala tageen xilli uu bannaanka ku maqan yahay ayaan la fiirsaday kadibna si lama filaana oo naxdin ay ku jirto inta aan albaabka u soo gangaracay ayaan waxaan ku dhahay Ismaaciil shil gaari ah ayuu galay hosbitaalka ayaana la seexiyey iyada oo naxsan ayay dumba waxa ay soo raacday baabuurkeygii wax shaki ahna igama aysan ninkii airport-ka ka soo qaaday maadaama aan ahaa marka waddo fiican oo cidla-cidlaah aan soo gaarnay afka ayaan qabtay isla baabuurka dhexdiisii ayaan ku suuxiyey gurigeygii marka aan imaadayna sidii kuwii hore oo kale koola ayaan inta aan ku xirxiray afkana naftaaliin aan uga shubay ayaan bannaanka ku soo tuuray gabadhan hijaabkeedii waxa ku jiro isaga oo aanan kaban qabin ayuu kolkani degdegay waana halka waraaqada magaca hoteelka iyo nambarka ay degnaayeen laga helay markii Ismaaciil dembiga shakiga jeelka loogu diray ninkani dhammaan hadalladiisu marka la dhageystay booliiska shoog ayay la noqotay waa ninkii xogta Ismaaciil iyo naagtiisu qolka ay degnaayeen iyo waxa ay samayn jireen booliiska u sharaxayay in dilaa iyo booliis sida ay u kala wanqaataan iyaga oo dilaaga xaqiiqada ahna aanan fahamsanayn waxay ahayd arrin mucjiso ah kadib marka caafimaadka ninkani la baaray oo la ogaaday inuu fiican yahay dhammaan dembiyadanina uu qirtay waxaa dib loo furay kiiskii Ismaaciil waayo Ismaaciil iyo ninkani daliilkooda marka la isbarbar dhigo waxaa aad u xoogan daliilka ninkani Ismaaciil isaga oo sheeganay in macsuum uu yahay ayaa xabsiga la dhigay maadaama shaki xoog badan laga qabay balse marka ay xaqiiqowday dilaaga qarsoon in ninkani cadaanka uu yahay wiilkii Soomaaliga ahaana muddo hal bil kadib xabsiga waa laga soo daayay ninkiina darajada koobaad ee xabsi ciqaabtiisu ay daran tahay ayaa loo diray